dadka muqdisho waxaan u sheegaynaa arrintan hadda ka jirto dalka waxaad ogtihiin dhibaatooyin badan ayaa dalka ka jira marka waxa waaye xoogaa macluula ayaa laga soo sheegay meelaha qaar ee dadka Soomaaliyeed ay ku nool yihiin waxaa kaloo jirta argagixiso caalamiya ayaa marka dalkan soo gashay dhibaatooyin badan ayay dalka ku hayaan arrintan waxaa looga gudbi karaa in dadka Soomaaliyeed iskaashi xooggan ay ka sameeyaan arrimaha marka ka jira dalka si yacni loolanka dalka ka jira ay marka u horumar la taaban kara ay ka gaaraan marka waxaan haddan u sheegaynaa argagixisada iyo kuwa duulaanka soo qaada ayaa mararka qaar waxay isku dayaan in annaga ayna muujiyaanoo marka dhibaato xooggan ay noo geystaan marka taas ayaan uga gudbi karnaa Salaad Cali Jeelle adigu waxaa tahay mas-uul ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya anigu waa dhahay laakiin waxaan u sheegayaa dadka in dadka Soomaaliyeed dadka qaldaya in laga dhiciyo oo marka dadka ay dadkuna yacni is-aaminaan taas ayaa marka dadka u sheegaya kaasi waxa uu ahaa mas-uul ka tirsan argagixisada caalamiga ayaa waxay weerar ku soo qaadeen meel fariisina ayay weerar ku soo qaadeen marka waxa waaye xoogaa yar ayay iyagu weerarka soo qaadeen lama qof ayaa meesha nooga dhimatay mudana Salaad waxaa jira warar sheegaya in markii weerarka uu dhacayay in meeshaas dhibaato ay ka soo gaartay ciidamadii weerarka lagu soo qaaday waxaas wax ka jira ma jiraan waa warar tirakoonteena marka waxa waaye anagu awalba waa iska dhici jirna oo argagixisada caalamiga iyaga ayaa mar walba annaga weerarka lagu soo qaadayay marka sidaas ayaan mar walba u baabacsan jirnay kaasi waxa uu ahaa mudane Salaad Cali Jeelle oo ka tirsan mas-uul dowladda federaalka Soomaaliya ah